xaflad ballaaran oo maanta lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa ku qalin jabiyay ilaa 34 arday oo wax ka baratay dugsiga hoose dhexe ee Saad oo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada Nairobi. xafladda ayaa waxa ka qayb galay culimooyin, odayaal waxgarad, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii. waxaana intii ay soconaysay xubnaha ka qayb galay ay u mahad celiyeen mas'uuliyiinta iyo macallimiinta iskuulkaasi oo dadaal badan ku bixiyay waxbarashada ardadii maanta qalin jabisay. hawl badan bay inaga hayaan inta caruur ay inaga hayaan oo laga yaabo inay duurka gal lahaayeen oo superpower noqon lahaayeen oo ay mataqaana naftooda halaagi lahaayeen marka way ku mahadsan yihiin man lam yashkuri naasa lam yashkuri illah. waxaan leeyahay laakiin iskuulkan oo kaliya ma aha institutionada waxbarashada oo aad u fiican oo maanta ummadda muslimiinta meel weyn ugu jira inayna noqonin oo kaliya mishiin lacag lagu soo saaro inayna noqon oo ay noqoto mabda lagu faani karo oo uu qofku yiraahdo taariikhdan aan ka tagay arday wanaagsan baan soo saaray. ujeedka xafladan qiimiga badan ee aadka loo soo agaasimay waxa uu yahay Saad Nursery and Primary School oo ardaydii dhiganaysay galaaska 8aad ee u fadhiistay imtixaankii KCPE-da 2015 in ay keeneen natiijo aad u sareysa. maamulaha guud ee iskuulada Saad Group of Schools oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay bulshada u qabtaan. iskoolka primary-ga Maria Stopes ku yaal wuxuu hayaa ilaa iyo 35 arday oo free uu ku dhigo waxa weeyaan scholarship uu siiyay. secondary-ga ilaa 37 primary-ga ku yaal Mandera 27 midka Bangani ku yaal 35 waxaan ka wada 15 afwan. intaas haddii la isku wada daro waxay gaarayaan 109. sidoo kale waxaan ku faani karno waxay tahay shaqaalahan hayno isku dardar waxa weeyaan 100 shaqaalaha noo joogta afartaas iskuul dawladda dad badan ma ka shaqaalaysiinay mas'uuliyadka ma ka qaadin mas'uuliyadaan ka qaadin. xafladda ayaa sidoo kale shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardadii maanta qalin jabisay waxaana gabagabadeedii hadalka qaatay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaan kamid ah baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto degmada Kamakunji. aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hortaaganahay aan ugu tahniyadeeyo magacyadooda waxa kamid ah Idil Cabdiqani, Ahmed Quraysh, Khadija Ahmed, Ikran Daahir, Zakariya Ahmed, Yaqub Ali iyo kuwa kale oo fara badan oo magacyadooda halkan ka sheegi kareynin oo aad iyo aad u dadaalay. aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa hawsha Saad dugsiyada Saad aad wadaan hore ka sii wada soo xoojiya. xafladan oo ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan ayaa gabagabadii wax xubnaha ka qayb galay ay si weyn u soo dhaweeyeen kaalinta waxbarasho oo ay kaga jiraan wadankan muassasaadka tacliimiga ah ee dadka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadankan Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi. Axmed Nur Ali Maxamed, Universal TV, Nairobi.